garoomada salaxa ayaa muddooyinka ugu dambeeyay wuxuu ku soo badanaya caasimadda magaalada Muqdisho iyagoo dhalinyarada ay aad u xiiseeyaan inay ku ciyaaraan garoomada caabana waxaan imaan qaar kamid ah garoomada ugu xiisaha badan kuwaas oo dhalinyarada ay habeen walba ay ku ciyaaraan waa xilli habeen waagi hore ma aysan jirin in habeen ay ciyaaraan dhalinyarada laakiin waxay fursad u heleen sanadkan ama sanadii ugu dambeeyay inay ku ciyaaraan garoomada salaxa ama fuustalka isbeddelka waqtigii tiknoolajiyada casriga ah ee caalamka ayaa saameyn inagu yeelatay haddii aynu nahay Soomaali badankeena dhankii kubadda cagta waa kuwo weli aan la qabsan garoomada fuustalka ama salaxa qof walba sidoo yaqaano oo waxa ay la qabsadeen dheesha xawaaraha iyo dhaqaaqa ku dhisan si la mid ah caafimaadka qofka iyo intuu awood u leeyahay inuu ciyaari karo ka hor dhalinta Soomaalida marka la joogo baratanka kubadda cagta waxay ahaayeen kuwa dhisa awoodooda xawaaraha sida Thierry Henry goysmada sida labada nin ee reer Brazil Ronaldo iyo Ronaldinho iyo in la ansixiyo gool qurux badan sida Maradona oo kale waxa aan si sahlan kugu dhihi karaa taasi waxay ahayd saameynta ay ciyaaraha reer galbeedka mar walba ku yeesheen isbeddelka kubadda qaaradda Afrika daawashada xidigihii ka baxay kubadda cagta sida Alexander Del Piero, Giorgio Besti, Zinedine Zidane iyo Johan Cruyff iyo kuwa kale oo ka mid yahay Jeje Okaja ayaa mar walba xidigaha Soomaalida ay kubad ahaan kaga dayan jireen waxa ay xirfadaasi xawaaraha dhaqaaqa iyo isticmaalka awoodda jirka ku soo bandhigi jireen garoomada bacaadka 10kii sano ugu dambeysay waxa kubadda cagta dunida ay u muuqataa mid la jecleysanayo taabashooyinka fudud ee kubadda marka ay ciyaartu socoto waxaana taasi iminka ku dhaga adeegaya in ay tahay wax loo baahan yahay macalinka kooxda Sky Blue Pep Guardiola kaas oo ku canbaxay falsafada tiki-takada waa xeelad sahlan ay dhalinta Soomaalida hadda ay jecel yihiin mana aan wax aad u adag kuma suurtagelayso in aad garoomada bacaadka kubadda u qaybiso sida Xavi Hernandez Paul Scholes iyo Andre Iniesta Lujan kuwaasoo caan ku ahaa baasaska qayrul caadiga ay garoomada ku soo bandhigi jireen xilliga ay dheeli jireen ciyaartooydani dhibaatooyin badan ayaa jiray xilliga garoomada bacaadka sida in mararka qaar kubadda lagu ciyaaro ay noqoto mid dilaacsan sabab la xiriirta in ay kubadda ku dhacdo meel aan munaasab ahayn sida in gaari uu dardaro ama qodixi ay muddo mararka qaar waa macquul in aad kubadda dhaafsiiso garoonka oo ay kubadda tagto guri aan ka fogeyn garoonka taasina ay noqoto gabagabada ciyaarta xitaa haddii ay daqiiqado socoto sidoo kale garoomada bacaadka waxay ahaayeen kuwa aan la kala lahayn qofkii doonana ciyaarta banadi jiray ama uu jooji karay laguna kala tegi jiray ciyaarta waana marka ay ugu wanaagsan tahay haddiiba laga fogaado dagaal iyo isqabsqabsi garoonka awgiisa wax lacagna laguma bixi jirin garoomada bacaadka garoomada fuustalka ee hadda ka jira caasimadda magaalada Muqdisho waxaad la bixaysaa lacag waxaa si muran la'aan ah aad ugu ciyaaraysaa lacagtaada ma ogolaan kartid in waqtigaada uu beerdaroobo waayo waqtiga uu kooban yahay lacagtana waa mid aan wax lagaaga reebi doonin garoomada fuustalka waa kuwa ku wacan kubadaha xasiloon oo cajiibka ah inta badan ay ciyaaraan dhalinyarada Soomaalida oo imika maalinkii la ciyaaro waxaaba kaga muhiimsan inay ciyaaraan habeenkii kubadda si kastaba ahaatee dhibaatooyinkii hore ee kubadda cagta bacaadka sida annaga qabno waa qadiimi laga soo guuray xilli garoomada salaxyada ah badi ay dhalinta ku baratamaan wixii horena ku ilow wixii aad haysato maanta had waa daawanaya marmar qaarna waa dheelaa badna laakiin waa dheelaa aad u faraxsanahay in mar walba garoonkan uu ku dheelo marka hore waxa ku dheeli jirnay garoomadan oo laho bacaadka had waxa ku dheelnaa garoomada salaxa bacaadka ileen marmar qaar waa ku jabe kan laakiin ma badna hadistiisa salaxyada meel xiran waaye oo dadka laga kala bixin meesha sadaarad waa dhace waa lagu istaagaa xaasidnimo leela kuwaas qamar ay dheelaan laakiin kan qamar maahan haday u baad fanaanada siibay hadii kale wax masiibay waa dheelay bushabka caadi u fiican tahay subaxii ay ku dheelnaa subax walba ay ku dheelnaa inta bushabaan dheelnaa subaxii ma la siiyo fanaanad badna farqiga u dhaxeeya salax iyo garoonka weyn ee bacaadka salax waa kubad iska oo baashaal ah inkastoo salax inta badan dhibaatadiisa u badan yahay ay garoomada waaweyn ka fiican yihiin ma sha Allah laakiin inta badan dhalinyarada inta badan waxay u bataan inay salax ku dheelaan marka ma sha Allah waa idinka mahad celiya garoomada waxaan ku ciyaari jirnay bacaadka kaasoo dhibaato badan naga soo gaari jiray badana dhalinyarta ku ciyaarto badana ku dhaacmi jireen misana qamaar lagu ciyaaro meeshan salaxa faa'iido badan ayuu leeyahay teeda kale qamaar iyo waxaas lagu ciyaaro salax iyo farqiga u dhaxeeya garoomada bacaadka ayaa mid kaas ah waagi hore bacaad ku dhili jirnay hadda waxa helnay salaxyo waagi hore bacaadkii
bacaadka wax badan lagu dheeli jiray haddana qamara lagu dheeli jiray haddana bacaadka lacag waa jira hadda waxaa helna salax ku dheelino yaalka xaafadeena waa ku faraxsanna inaa oo salax helno salaxyada wuxuu leeyahay sharciyo lagu ciyaaro haddii ay kooxda gool laga dhaliyo waxay siibayaan fanaanad ama inay ciyaaraan bush up waa sidii ay ku heshiiyaan laakiinse waagi hore bacadyada dhalinyarada markay ku ciyaaraan waxay ahaan jirtay mid ay ku bixiyaan lacagooda ama ay qamara ku dhigtaan laakiin salax maaha mid qamar lagu dhigto keliya waxay ku ciyaaraan inay fanaanadiska siibaan ama ay bush up ay dheelaan sidii ay ku heshiiyaan labada kooxood ee wada ciyaaraya cabdifataax cabdirashiid abuukar naani Gol FM muqdisho